cabdixakiin axmed cigaal ayaa loo haystaa dil bareer ah oo u geystay allaha u naxariistay marxuum weliye cabdikariin axmed bulxan kaasi oo ka dhacay degmada caabudwaaqi waqooyiga ah gobolka galgaduud 13 bishan gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud sheekh Cusmaan Cali Huday ayaa ugu horeyn fursad u siiyay eedeysanaha inuu ka jawaab celiyo eedda ay soo diyaarisay xiraalintu sida ay habraaca dacwadu tahay maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha 3 2024 maxkamadda gobolka galgaduud waxay u fareysanaysaa dhageysiga dacwadeedka sumadiisu tahay 429 2024 waxaana eedeysana ka ah cabdixakiin axmed cigaal loona haysto inuu dil u geystay kas ah cabdikariin axmed bulxan eedeysana cabdixakiin axmed cigaal dhankiisa ma inkirsana inuu dil bareer ah u geystay الله ونحرس تهورية سمافلة عبدكريم أحمد بلحان بسم الله عبدكريم أحمد بلحان إيديس لوسو يديلك سواق جيسي سكسر وجيس حفيز كحرارين تجل مدوب أيا صوبان لجي إيدين تا يعدي مهلت كواه إيدي سنها سلام ده خرينا ده دفاعي إيدي سنها أيا محكمة داود أيا جوان كذا بل سوى هاي كعصدين إن الله فيريو سيابها الدم بقى في ضياع محكمة ده قبل كجر جدود أيا قد دعوات كأودرت حكم waxaana wada tashi kadib lagu dhawaaqay xukunka sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud sheekh Cusmaan Cali Huday maxkamadda gobolka galgaduud waxay ku dhawaaqaysaa xukun ciqaabeed ka sumadiisu tahay 429 hadaba maxkamadda gobolka galgaduud markay aragtay xaashida xafiiska xeer ilaalinta ee ku suntan 412 2024 kuna taariikhaysan 20ka bisha 3 2024 markay dhageysatay jawaabta eedeysane cabdixakiin axmed oo ku jawaabay dil kas ah waa aan u geystay marxuumkii la dhigi jiray cabdikariin axmed bulxan maxkamaddu markay aragtay dhageysatay dooda xafiiska xeer ilaaliyaha maxkamaddu markay aragtay warqadda qiraalka ee uu maxkamadda ka hor qirtay maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenkiisa maxkamaddu markay dhageysatay codsiga eedeysanaha oo codsaday in shariicada islaamka lagu fuliyo laguna xukumo maxkamaddu markay aragtay aayadda 45aad ee suuratul maa'ida iyo aayadaha 178 179 ee suuratul baqara maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay kitaabka minhaajka mujalladka jaraaxada baabka inma yathbutu alqisaasu biiqraarin aw shaahiday cadlin maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysane cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed 53 jir ah ku dhashay degan caabudwaaq uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiile cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum allah u naxariistee cabdikariin axmed bulxan wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaanays kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaanays Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega